qisadani waxay ka dhacday waddanka Ingiriiska sanadkii 1992. Katie waxay ahayd gabadh yar oo 18 jir ah, waxayna ahayd gabadh aad u furfuran oo asxaab badan. Markii ay dhamaysatay iskuulkii waxa ay bilowday inay hirgeliso himiladeedii ahayd in ay qoys yeelato oo ay sidoo kalena guri weyn iibsato. Waxa intaasi u sii dheerayd waxay jeclayd inay daryeesho xayawaanka dhibaataysan ama dayacan. Katie waxa ay dhigatay kooras ay ku baranaysay sida loo qurxiyo timaha, hagaajinta timaha, waxayna bilowday inay u shaqo tagto coiffeur ama waxa loo yaqaan beauty salonka, meelaha dumarka timaha loogu qurxiyo iyada oo da'deedu ay aad u yar tahay. asxaabteedii la shaqayn jirtay waxay sheegeen in ay ahayd qof aad u shaqo badan, shaqadeedana ay aad iyo aad u jeclayd. waxay asxaabteeda ay shaqo wadaagta ahaayeen ay ula dhaqmi jirtay sida qoyskeeda oo kale, waxayna ahayd gabadh aad u wanaagsan. haddaba waa tan maalintii ay Katie riyadeedii iyo rajadeediiba lumeen. waxay kala tegeen wiilkii ay jeclayd oo ay wada sheekaysan jireen. arrintaasi waxay ku abuurtay niyad jab iyo heer ilaa ay guriga ka soo bixi weyday iyada oo ka dhex weyday qolkeeda, lana hadli weyday waalidkeedii. waxa aanay sidaasi ku jirtay muddo dheer. haddaba maalin maalmaha ka mid ah waxa u timid gabadh ay saaxiib ahaayeen Katie. waan baxaynaa ayay ku tidhi, waxa aan tegaynaa xaflad, igamana diidi kartid, in badan baad noloshan mugdiga ah ku jirtay. markii ay saaxiibadeed arrintaasi ku adkaysatay waxay istiri Katie maad iska raacdid oo aad jawiga waxoogaa iska soo yara bedelatid, waana ka ogolaatay inay raacdo. kadib waxa ay isku raaceen xafladii. habeenkaasina taariikhdu waxa ay ahayd 6 Juun ee sanadkii 1992. xafladda waxaa joogay asxaab ay isgaranayeen iyo kuwo badan oo aanay is aqoonin. habeenkii oo dhan halkaasi ayaa lagu wada qaatay, waxaana laga soo dareeray 4tii subaxnimo. dadkii oo dhanna waxay ku laabteen guryahoodii ilaa Katie iyo saaxiibadeed mooyaane. dhinac ayay u baxday saaxiibadeedna dhinaca kale. Katie waxay hal mar ku war heshay iyada oo joogta meel aad uga fog meeshii ay xafladdu ka dhacaysay, oo qiyaastii ilaa 40 daqiiqo u jirta. waana meel aad u halis badan oo ay joogaan dad wada cabsan ama sakhraansan. haddaba habeenkaasi Katie kuma ay soo laaban gurigoodii, waxaana meydkeedii ay booliisku ka heleen isla goobtii. dadkii oo dhan waxay u maleynayeen inay iyadu isdishay maadaama oo in muddo ay ku jirtay xaalad isku buuqa. sababtuna waxay ahayd mar haddii ay saaxiibkeed kala tegeen, arrintaasina ay niyad jab ku abuurtay. laakiin booliisku way hubeen inaanay iyadu isdilin oo la dilay, waayo jidhkeeda oo dhan waxaa ku taagtaagnaa midyo, ilaa 32 midyood ayaa lagu taagay. waxaana loo dilay si aad iyo aad u arxan daran, aad iyo aad u xun oo aanad sawiran karin. waxaabad odhanaysaa qofka cadaawadan dheer u hayay ee sida naxariis darrada ah ugu cadho burburay muxuu ahaa. haddaba su-aashu waxay tahay Katie yaa dilay. Katie boorsadeedii iyo wixii ay wadatay oo dhan sidoodii ayay ahaayeen oo waxba lagama qaadan. qofkaasina ma ahayn tuug, mana ahayn qof u baahnaa jidhkeeda, waayo lama taabanin. waxaana ay booliisku ku qiyaaseen inuu qofka dilay yahay qof nin ah oo aad u xoog weyn, kaasi oo la dhacay midi ilaa inta ay ka nafbaxaysay. rabayna keliya inuu dilo, waxaanay u ekayd inuu ka aarsanaya ama uu ku ciil baxayo. haddaba su-aashu waxay tahay Katie meesha ma iyada ayaa tagtay mise qofku waxa uu geeyey marka uu dilay? booliisku waxay bilaabeen baadhitaankii, waxayna u yeedheen markii ugu horreysayba saaxiibkeedii ay kala tegeen. way waraysteen waxa aanu u sheegay in muddo dheer ay isugu dambeysay gabadhan oo ay kala tegeen. booliisku wax caddayn ah way ku waayeen, waayo isagu ma ahayn dilaaga. waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso saaxiibadeedii habeenkii kaxaysay in ay ka dambeysay dilka. baadhitaano dheer kadib oo ay sameeyeen booliisku ilaa kamarooyinkii la baadhay, waxa ay booliisku waayeen wax caddaymo ah oo muujinaya in gabadhaasi ay dishay. muddo 2 sano oo ay baadhitaano socdeenna lama helin wax caddayna, maadaama oo dilaagu aanu ka tegin wax raada. waxa aanay walwalgelisay dadkii ku noolaa magaalada, waayo lama hayo dilaaga. taasina waxay sababi kartaa inuu dilal kale ka geystay isla magaalada. muddo kadib markii ay ka soo wareegtay 2 sano, sanadkii 1994, qof ayaa telefoon ka soo wacay booliiska. halow, saaxiibadaya Amneeri midi ayaa dhabarka laga geliyay, xaaladeeduna ma fiicna. wax yar kadib booliiska ayaa goobtii tegay, waxayna u qaadeen dhakhtar, maadaama oo ay dhaawacyo xunxuni kaga yaaleen dhinaca dhabarka oo midi laga geliyay iyo weliba qoorta oo ay dhaawacyo kaga yaaleen. dhakhaatiirtuna waxa ay sheegeen in haddii ay noolaato ay tahay qof aad u nasiib badan. Amneeri may dhiman oo way badbaaday, laakiin waxaa ku dhacay cabsi iyo warwar. markastana maskaxdeedu waxay soo celcelinaysay sidii ay wax u dhaceen, ilaa heer ay habeenkii seexan kari weydo qolkeeda oo ay aabaheed bogga ka gasho. Amneeri markii la waraystay waxa ay sheegtay in qof uu ka dalbaday in ay raadiso shilimaad yar oo dhulka kaga lumay, kadibna qofkii inta uu xagga dambe ka maray uu dhinaca suuliga sidaasi ugu tuuray.
midina uu la dhacay waxaana qayladeedii maqlay markaasi asxaabteeda kadib markii ay soo gaadheen goobtii waxay arkeen Anne-Marie oo dhulka taala dilaagiina uu dul taagan yahay kuna qoslaya cod aad u dheer haddaba 2 sano kadib weerarkii Anne-Marie ee 1996 gabadh yar oo 16 jir ayaa u sheegtay saaxiibadeed inay garanayso ciddii dishay Katie iyo sidii loo dilay 4 sano ka hor markii da'deedu ay ahayd 12 sano haddaba iyada isma yaqaanaan Katie mana aha saaxiibadeed haddaba siday waxyaabahan oo dhan ku ogaatay gabadhan yar waxaa lagu magacaabi jiray Sharon haddaba arrinkii Sharon wuxuu gaadhay booliska kadibna way u yeedheen si ay u wareystaan iyaga oo yaaban oo isla 4 sano ka hor waxay jirtay 12 sano siday waxaan oo dhan ku garan kartaa waxay weydiiyeen su'aalo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin yaa dilay Katie iyo sida ay u dhimatay Sharon tii yareed waxay bixisay jawaab ayna cidna ka filaynin Sharon waxay bilowday hadalkeedii 2 saacadoodna waxay sharaxaysay sidii ay iyadu u dishay Katie yaa oo siday suurtagal ku tahay in qof 12 jirihii uu dilo qof waliba sidan aadka ku argagax gelinaysa uu u dilo haddaba Sharon waa qofkii midida geliyay Anne-Marie oo dhimashada ka badbaaday xilligaasna waxay jirtay da'da 14 iyada oo xilligaasi inta ay suuliga u kaxaysay kadibna boorsadeeda kala soo baxday midi ay dhabarka ka gelisay Sharon waa la xidhay xilligaasi waayo Anne-Marie way garanaysay cidda dishay 2 sano ayaana lagu xukumay Sharon kadib markii ay soo baxday iyada oo 16 jir ayay bilowday inay ka sheekayso dilkii Katie iyada oo ka dhiganaysa wax lagu faano Sharon markii labaadna waa la xidhay waxayna qiratay in iyadu ay dishay Katie waxaana ay ka sheekaysay 3 qiso oo isku dhowdhow oo 3duba ay la xidhiidhaan sidii ay Katie u dishay tan ayaana ahayd tii xaqiiqada ugu dhaweyd habeenka waxaan la socday ayay tiri 2 nin oo saaxiibaday ah gaadhina waanu wadanay waxa aananu jidka ku aragnay Katie waxaanu ka codsanay inay gaadhiga nala soo raacdo si aanu ugu sii dhaweyno gurigeeda laakiin wayna diiday markii hore laakiin kadib markii ay aragtay ilmo yar oo gaadhiga saaran oo waliba gabadhan u soo dhool cadaynaya kuna soo eegaya weji miskiinimo la waa Sharon cabsidii way ka baaday Katie waxayna soo raacday gaadhigii waxay noo tilmaantay wadadii gurigooga ay tagisay laakiin waanu ka leexinay ayay tiri wadadii markii ay aragtay Katie in meel kale loo leexiyay gaadhigii bay iska tuurtay aniguna waan ka soo dabadegay waxaana la dhacay mididii ayay tiri ilaa markii ay ka dhimanaysay oo ay ka nafbaxaysay labadii nin ee saaxiibadayna way baxsadeen ayay tiri anna gacantii Katie ayaan kala baxay silsiladii ugu xidhnayd kadibna gurigii ayaan tagay dhiiggiina waan iska meedhay mididiina waan nadiifiyay intaasi kadib waxa aan u seexday guriga ayay tiri sidii oo aanay waxba dhicin oo kale labadii nin ee ay sheegaysay Sharon ayaa ay booliisku kadib u yeedheen waxa aanay dafireen arrintaasi inay haba yaraatay wax ka ogaayeen waraysi dheer kadibna waa la iska sii daayay maadaama oo aan wax cadayma ah iyaga lagu haynin haddaba Sharon maxay sidan oo dhan ugu arxan darayd ee ay u jeclayd dhiigga dadka Sharon waxay ka dhalatay qoys aad u faqiira oo aabuhu uu yahay qof caadaystay cabidda maanduuriyaha hooyaduna ay tahay hooyo aad iyo aad u kulul aabuhu wuxuu dili jiray Sharon iyo hooyadeed labadaba haddii ay Sharon tan yare wax qalad ah samaysana hooyadeed si xun ayay u jirdili jirtay Sharon yaraanteedii ma helin wax naxariis waalidnimo wax kastana iyada ayaa qabsan jirtay markii dambe Sharon hooyadeed way isaga tagtay odaygeedii waxayna guursatay nin taajira tan yarna way ka xaysatay waxaana xilligaasi Sharon ay gashay nolol aad u fiican guri weyn iyo iskuul qaaliya nolosheediina way isbedeshay haddana waxay ahayd qof jecel inay dhibto asxaabteeda waxay baratay asxaab aad u xunxun kuwaasi oo ku dhiiri gelin jiray tuuganimada iyo inay dadka dhibaatayso maadaama oo ay jecleed waxyaabaha caynkaas ah markay muddo sanada arrinka wadii ayuu u dul qaadan waayay ninkii hooyadeed qabay maalin kasta mushkilad taagan wuxuuna go'aansaday inuu xaaskiisa isaga tago Sharon hooyadeedna way u dul qaadan weyday markii uu u sheegay inuu ka tagayo waxa aanay soo qaaday maqla ay ku jirta saliid aad u kulul kadibna madaxa ayay kaga shubtay Sharon way arkaysay waxaasi oo dhan laakiin iyadu wax dhiba uma arkayn maadaama oo ay horeba u arki jirtay aabaheed iyo hooyadeed oo horteeda isku garaacaya markaa kadib waxa la ogaaday in Sharon tan yare ay qabtay xanuun dhanka maskaxda ah kaasi oo ka dhigay mid ku raaxaysata dilka dadka Sharon waa la xukumay xilligaasi waxaana la geeyay dhakhtarka lagu daweeyay dadka dilalka geysta halkaas ay ku jirtay muddo kadibna waxay isku barteen wiil kale oo isaguna dil geystay wiilkii ayayna isku guursadeen dhakhtarka dhimirka dhexdiisa arrinkaas oo markuu dibadda u soo baxay ay saxaafadu aad uga hadashay iyada oo bayjadka jaraa'idada lagu soo qoray mid kastaba dilka uu geystay kadibna TV ayaa ku dhex wareystay dhakhtarka dhimirka dhexdiisa waxaana uu mid kasta maqlay dilka uu kan kala geystay kadibna halkii ayaa la isku furay fargalkiina wajiga la isaga dhuftay Sharon imika da'deedu waa 41 sano welina waxay ku jirtaa dhakhtarkii dhimirka waxayna sheegeen dhakhaatiirtii in aanay xanuunkan ka bogsanayn iyada oo dhowr jeer oo kale isku dayday sidii ay u dili lahayd gabadh ay isku qol deganaayeen
waxaana la sheegay in imika xukunkii ka dhammaaday oo ay u qalanto in la sii daayo, balse cabsi laga qabo inay dad kale sii disho darteed loogu sii hayo weli dhakhtarkaasi dhimirka. intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekadan. haddii aad ka heshay muuqaalka halkana aad nala soo gaadhay, fadlan muuqaalka like saar, lana wadaag saaxiibadaada haddii aad ka heshay, nagulana soo wadaag dhinaca commentiga haddii